maamulka guud ee shirkadda Haas Gas ayaa si adag uga jawaabay hadalkii maanta ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee Somaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi. Cabdiraxmaan Yuusuf Qarshood gudoomiyaha guud ee shirkadda Haas Gas ayaa si adag uga hadlay arrintaasi isagoona uu ku tilmaamay inay tahay khilaaf isaga iyo wasiirka ka dhaxeeya oo uu sumcadilayo wasiirku shirkadda Haas Petroleum. jawaabid wasiirka howlaha guud Qambi idaacadaha wuxuu maanta kaga hadlay waxaa nasiib darro ah oo runtii wax laga xumaada ah oo baryahan shirkadaha Soomaalida tahdiidka ku dhaca ee ugu badan ay noqotay qofkii ku cadhooda inuu yiraahdo laba shay ama maamulada dawladaha jira yaan ka dacaadeynaa ku sii deynaa dacaayad ama uu yiraahdo waxaan ku sheegaynaa inaad tahay argagixiso al-shabaab labada nooc iyay dadku soo bandhigaan oo ku hanjabaan inay dadka wax ku yeelayaan ninka wasiirka doorkii dhaweyd ee meesha la yiraahdo Addis Ababa yaanoo talaasida waxaan ku kulannay hodheer Addis Ababa isaga horta waxaan waa laba nooc ilmaadeera oo wax badan ka dhaxeeyaan xigta ah xidida xigaala yaanu nahay oo meesha waxaanu isugu nimi isku aragnay hodheelka u deganaa anna markaa soo dego transit ku ahaa waa salaanay waxaana dhex martay qisadan aan soo wada hadda waxaa dhacday isaga laba nooc ilmaadeer oo saasaan horta isku deegaan ma kan magaalada Buuhoodle yaanu u wada dhalno waa isnaqaana ka ab waa isdad yaqaanaan waxaan rabaa awalan inaan shirkadda bari yeelo iyo naftaydaba annagu waxaan nahay ganacsato siyaasad iyo ganacsina meel ma wada galaan haddaan doonayo siyaasad mansab ahaan iyo magac ahaan labadaba kaan doonaan makaanada laga raadiyo siyaasadaha kaga heli karay ma sarraba oo siyaasad uma socdo nin ganacsada sal ajiga anagu wixii ku jira siyaasad ee dadka deegaanka aan ka wadnimo meeshay doonaan baa kaga jireen ma faraysano farahan lama galo jabhadahan uu sheegay jabhadna ma galo lacagna kuma bixino lacagna kama qaadano hunguriga kama raadino waxaanu isugu nimi Qambi magaalada Addis Ababa markaan isu nimi Qambi wuxuu u salaamay dad ilmaadoor oo ehel oo meel ka wada yimaan ahayn wuxuu u weydiistay inaan wax taro oo wax siiyo nasiib darro gacanta waxa markaa kuma hayn waan sii yara wada fadhinay hadalkaan la ka taagmay wuxuu igu xujiyay eedayn ah waad arki doontaa waan iga cadhooda war hay'adda deegaankayga ma joogo magaalaan marayay meesha xukuumaan tala gelinaadeen u kaada ninkaasi wuxuu la dagaalamayay dadka yacni qiimihiisa ku garanaysaa wuxuu la dagaalamayo halka noo geeyay waa shilin yar oo shaxaad wax kale oo noo dhaxeeyay ma jirin sharaf iyo xigmad iyo ehelnimo noo dhaxaysa jabhad iyo ciidan abaabulay iyo ciidan soo dirnay iyo ciidan agaasinay toon horena uma dhicin hadda ma dhacayso shaqo kuma aan ugu jabada waa ganacsataanahay shirkadu waa runtiis waxay joogtaa Afrika oo dhan bay joogtaa ilaa Saylac bay joogtaa dalkan Soomaaliya joogtaa يعني شركة waa shirkad ballaaran waa shirkad Soomaaliyeed laakiin de irsaaqda ilaaha baxsha inuu u raadiyo qaabka irsaaqda waa qaab aad u fudud waxaan leeyahay Soomaaliland marka wanigan mansabka u dhiibateen hadiiba garashadiisii ay siinayso inuu shirkadihii deegaanka uu u dhashay ka soo jeedo intuu ku faani lahaa ay siisay garashadiisii inuu ku sheego jabhad bay wadaan iyo kanay wadaan waa nasiib darro ninka saasa ma waxaad ka sugaysaan inuu gobol idin hayo ma waxaad ka sugaysaan inuu masalo deegaankii uu ka yimi waa nasiib darro isagana waxaan leeyahay in adeero shaxadku inoo furayay daadad iyo manasayimo laakiin waxa aan munaasabka ahayn iyo dacaayada in adeero waa inama kala qabato ka daabaan leeyahay maan sheegeen waxa ay kaliftay inaan sheego oo xanuunka iga keenay runtii afkaygana ma aha afni weynna ma aha waxa iga keenay waxa weeye xaqiiqdiis intaas aan dhaxmartay intaas markay dhaxmartay jawaabtiisii tan ay noqotay Umar Cabdi Axmed Karinle wararka shabakada caalamiga Wadweyne News Hargeysa.